horta ninkii doorasho raba oo Kismaayo ka raba ama ka raba xamar meesha ida ku qabsaday shir intuu soo kaco intii imaada yo anaga maartay nagu furin tashuush iyo maartay waxaan jirin doorashada meesha aad ka rabto dad way joogan anaga kulay kuma ridayno Kismaayo ku qabso afmadow ku qabso badhaadha ku qabso jumada hoos waa taqaana kaasan ka yiri dadka Soomaaliya ka imaanay oo shirarkeeda ku qabsanay oo haddana siyaasad ka hadlay dadka nidaam ay degsadeen bay ku nool yihiin Soomaalida Kenya si bay isugu xiran yihiin xisbiyay ku jiraan doorashooyin bay qabaan baarlamaan bay qabaan madaxweyne ay doortaan way isku xiran yihiin nidaam ba isugu xiran nidaam kale kor laga keenay hadaa soo galisaan annaga asnaayna ma idinka ogolaanayn sidaa darteed waxa aad wataan meesha hadda aad joogtaan ku wada aad iyo aad baad u mahadsantihiin Axmed Maxamed Islaam community Jubaland ba ku dooratay cadaalad dalka ugu shaqee annagana waan ku garab taaganahay haddii ninkii shalay ku garab taagnaa ee uu fiican yahay ku lahaa yaa hadda uu xun yahay leh maxaa la dhihi karaa ninkaas fartaag iyo ninkii la cabdirijanan nimankii waxay ahaayeen Axmed labadiisa dhinac taagna maantana waxay leeyahay Axmed baa xun oo nin xun ah ma iyaga xun oo shaqadooda ka tagay mise Axmed baa xun Axmed waa nin wanaagsan shaqadii dadkii uu dhameeyay uu u dhiibayna way aaminsan yihiin dad fiicanna uu ka dhashay waxaan rabaa haddaan liigu diidin 12 sano ee soo socota ma aha kuwa la soo dhaafay inuu meesha sii xukumaan rabnaa waxyaalahan lala taagan yahay 24 saac meediyaha Axmed Maxamed Islaam waa madaxweynaha Jubbaland anaka ma dooranin Soomaali baa dooratay Jubbaland baa dooratay dadka doortaad ka mid tihiin haddana 24 saac aydiisa la taagantiin dariiqada la taagantiin waxaasna wax macnaha qof Soomaalidu waxay tiri jirkiis lahaa jiridka ma qoslo war waan idinka xishoonahaynaa naga xishooda wax kale Soomaali ah ama dagaalamayo ama wax ka sheegayo ma hayno xaqiiqatan Soomaalidu waxay tiri nin islaanta u joogo gabadhaada lagu ma karo war hadda dadka noo jeedina noo sheega cadeesta Axmed Maxamed Islaam waa taageersanahay dawladdeena Jubbaland waan taageersanahay oo waxaan taageersanahay dawladda Soomaaliya oo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud waan garab baan u nahay waan garab taaganahay Jubbaland anaga wax weyn baan meesha ugu joognaa madaxweynaha Jubbaland waa taageersanahay waxaana ku taageersanahay dadka annagiiba degan meesha nabadgelyo ku haysanaa wuxuu ayaato wax badan buu reerka soo gaarsiiyay wax badan buu qabtay insha Allah ninkan intuu jagada fadhiyo in la taageero midaya nin walba wuxuu rabaa jagada inuu ku fariisto hadduna maanta taageerin intuu hayo jagada kan kale oo kasoo lagu taageeri ma jirto qoladan ka soo qaliyay meesha buuq ka taagan waxba arnaa leh deegaankiina way deegaanka cishadeen waxay dhahay ma imaanaan deegaanka ma imaan Axmedoobe waa madaxweynihii wadanka muxuu ahayd Jubbaland hadduna u diidaan oo dhahaan madaxweynaha Jubbaland ma imaanayaan ayaga say Jubbaland soo imaanayaan su'aasha la isweydiiyay waa fiican tahay nimankaas inay saa u fikiraan oo dhahaan war berri baa annaga xukunka qabanayna oo qoladan absamaha ama kumada aan maartay aan madax u noqonaynaa annaga aan ogolaano xukunkooda ku fiican tahay dad aqal badan oo dad maartay odayaal oo aqal ina taliyaan yaa aad u fiicneed waxaan u malaynayaa wax qabtan ilaa hadda lama hayo tii u dambeysay hadda badacadaha waan la soconaa waxaan leenahay annaga kulli haddaan nahay maartay Northeastern waxaan taageersanahay Axmed Madoobe nabadgelyo ku haysanaa Kenya nabadgelyo ku haystaa dawladda Kenya way taageersan tahay mar haddii dawladda Kenya taageersan tahay waxaan ku qasbanaa in la taageero annagana macnana nooma sameynayso dal dawladdeena ay xiriir la leedahay saaxiibna la tahay waddankeena gudihiisa in lagala dirido macna ma sameynayso mana ogolaanayno waxaan leenahay dalka Soomaaliya nabad buu noqday wuxuu ku baaqay in Sheekh Maxamuud Soomaali nabad ah dunidana la nabad ah way muuqataa inta ninkay deeqi weydo oo nabadda Soomaaliya ka jirto ay deeqi weydo haddaad wax macaaradi xamarku macaarad oo Xasan Sheekh Maxamuud diidan tahay haddaad Axmed diidan tahay Kismaayo ku macaarad وحلا واحد يدرس في الصومالية متين سو حلم دونيسيد أنت لقى ما دورنا يا حاجتك حاجكم عارض أحمد سوما باشر وكرنا شيء حلككم ماذا جيستي دتك جيستي وان كمدنا هاي لمدنا هاي وحنا كلها نقيم وين إنه جوجنا أنا قرالي كه حلك ما أنتوا كنا ماذا وتجي
intuu joogana annaga raalli ka dalka Kenya godob oo ka galay ma jiro saaxiib uu leeyahay ninkii la tartamay rabo diidano waxa tagaysa Jubbaland halka shirka ka qabso sheego ummadda Soomaaliyeed khaas ahaan gobollada meelahan qayrooyinka ka yeedhay Nairobi Gedo meelahan qaylo badan baa ka baxaysa waxay u qayliyahayaan ma ogin annagu dad waaweyn oo wadanka jooga oo waliba Jubbaland joogaana anu Jubbaland dadkii soo dhisay ee khaaska uga soo shaqeynayaan ku jira haddii dawladda Jubbaland la dhisay meeshii ugu muhiimsanay khayraadkiina soo gaaray boqolkiiba 60 la siiyay gadeeyay iyadoo hormartay oo la xoreeyay oo barwaaqa oo habeenkii baabuurku asagoo hal askari uu san saareen meel walba tagay yaa farmaajo iyo wixii la midka ah yay ku fadhiisteen oo aafadan iyo burburkan iyo aadan galiyeen iyagoo dana shakhsi ah kan waxaan rabnay dadka waxa ka maqan wixii u geystay inay ka hadlaan mar qura kama hadlayaan waxay ka hadlayaan ninkii u dadaalahay aminkana daba socdo wanaag la doonahay oo maamul u sameynay oo kala dambeyn u sameynay oo horumar la raadinay oo mar dhaweyd markii fatahaadi biyihii iyo colaadihii iyo wixii ay galeen intaba gurmad u sameynay dadka Soomaalida ee sideedaba annaga noo hanjabi dadkooduna meel walba u joogno meel loo yahay ha xusuusnaadeen inaan annaguna tallaabooyin qaadi karno laakiin waan ka xishoonaa annaga inaan Soomaalida waxyaalo ku mudmudno waan ka xishoonaa waan ugu Soomaali jecelahay Soomaalida maxaa yeelay annagoo meel walba nala degan yahay yay dadkii Soomaalida absama had iyo jeer ama kuumade yay un midyo wataan oo ku mudmudahay oo si qaab daran oo la hadlaan oo si waxayna eedayn hayaan oo waxayna hayaan miisaan hadda Gaarso kale Soomaali qoys aan deganayn male nabad bay ku degan yihiin dhulkii laga male siyaasadii laga male wixii laga male siyaasadda hadan annagu muxuu ahaay isku haysan lafteeda dadka ka qayb qaadanaya oo ololaynaya waxayna yihiin wax la riixaya wala waxayna male markaas in annaga meelaha aan muxuu ahaay aan loo malaynahay inaan ku yarnahay lagu meebayo taama ogolaanayno waan waxaan meesha ku jirin waxa kale jirta haddii Soomaaliyay waxaan idin sheegayaan fariid idin sheegaynaa haddii qofka sidii la rabay dawladnimada oo u maareeyo wixii kale la doona waa qabiil iyo hiblow iyo qabiilka anagu ma hayo maxaa qabiil ku faraysan Soomaali 30 sano 30 sano ahayd Soomaali dawlad la'aan 30 sano ahayd hadii uu maareeyay Axmed Madoobe nidaamkii loogu talagalay sidiisa u daysaan hanjabaad iyo caayid iyo waxaana nimanka reegado ha iska daayeen tolbaanahay talibadan fiirinayna hadii ay talibada ka tagaana iyaga u taala war badan baa ka iimaanay marka saasa jirta